qodobka ugu horeeya waxa weeye xildhibaanada sayla ee sida cadaalad darrada lagu sameeyay wasiiradii ka tagay halkan wasiir ku-xigeenkii labadii wasiir ay ku sameeyeen xasuuq xildhibaanadii oo qaar la soo tahriibay xildhibaan Cabdikariin waxa lagala soo fakaday sayla waxa lagu soo xidhay sayidii Hargeysa mushkiladeena haysataana wax kale maaha maalin alliye maalintu madaxweynuhu baxo ayuu madaxweyne ku-xigeenku eegtaa ama baxo wasiirka arrimaha wasiirka madaxtooyadu maalintii hore la xidhay kuwii Boorama waxa maqnaa madaxweynuhu maqnaa wasiirkii madaxtooyada xirsi uu maqnaa maanta Maxamed Xaashi uu maqan yahay waxa kale oo maqan madaxweynihii maanta waxa la soo xidhay Cabdikariin xildhibaan Cabdikariin oo sayidii Hargeysa lagu xidhay si uu dad laayay taas waa midayaan daraa hadduu arrinteenu ka kori weydo in la qabsado xildhibaanada iyo reer hebel buu ka hor yimid nin reer hebel oo sayla ay isku hayb yihiin waa mid mushkilada wallahi taas waa ayaan darrada inagu baahsatay mid kale imka Boorama way ku jirtaayo arrinta mucjisadii waxa weeye kale aan ka hadlaya waxa weeye saddexaad tii carruurtii aan dhalnay lacagta laga qaaday 3 bilood ee abaaraha ee wasiirka uu ka qaaday wasiirka waxbarashadu lacagtii laga ururiyay ciyaalka wali meel alliye meel lagu wareejiyay ma hayno arrintaas waxay ku kooban tahay qolada waxbarashada oo Cabdilaahi Dheer uu yahay hormoodka qoladaasi waxaan leenahay ma lacagtii dadka laga guray 3 bilood ee bishiibana laga qaaday $3 calaa qof daba halkay martaana laga warbixin malaha dawladdu warskama haysay dawladdu waqtigii boobka ayay ku jirtaa in dadka la boobayo bay nala tahay waxaan u leenahay markaa oo soo jeedeenna xukuumadda iyo madaxweynaha la doortay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo madaxweyne bal hadda arrinta dib ugu fiirso aduu musharax ma tiidi aduu dib ugu fiirso waa dadkii xisbiga ahaa ee kulmiyada ka meesha ka hadlaya taageerayaashii kulmiyaan nahay wixii jira say in la sheegay xisbi lagama baxayo qofna looguma habranayo